salaamullaahi calaykum saaxiibada qiimaha badan ee ku xihan kanaalka ogaalka dunida. kaymaha waxaa lagu xukumaa qawaaniin iyo qaacidooyin kuwaasoo inta badan ku tusinaya in awooddu tahay shayga keliya ee aad ku joogi karta kaynta. waxaa laga yaabaa in arrinkani yahay mid murugo leh, laakiin waa waxa keliya ee ka shaqeeya caalamkan kaymaha. maanta waxaan idiin soo ururinay qaar ka mida muuqaaladii ugu cajiibsanaa ee dagaalada ka dhaca kaymaha. haddaba nala socda si aad u ogaataan, laakiin ka hor inta aynan bilaabin waxaan idinkaga mahadcelinayaa muuqaaladii hore sidaad ula falgasheen, sidoo kalena laygta faraha badan aad u saarteen. runtiina arrintaasi waxay kor u qaadaysaa macnawiyaadka kanaalka iyo weliba habu socoshadiisa, iyadoona nagu dhiirigelinaysa inaan halkan soo dhigno muuqaalo badan oo markaasi aad xiisaynaysaan idinka alle. haddaba ha ka hilmaamina muuqaalkan inaad laygta saartaan, naguna dhiirigelisaan hore u socoshada. sac iyo anakondahan maskan waxa uu isku dayay inuu soo weeraro dhasha yar ee saca, waanu dilay si uu u cuno dhashan yar, laakiin muusan dhammaysan cunitaankii kadib markii uu si kadisa ula kulmay hooyadii oo ku soo socota. ragga ka shaqaynayay beerta ayaa soo gaaray iyagoo isku dayay inay meesha ka saaraan maskan weyn, laakiin hooyadii ayaa weerar ku bilowday kadib markay aragtay indhahana ka buuxsatay meydka ilmaheeda yar. waana waxa ay samayn lahayd hooyo kasta oo ilmaheeda laga dilo. inkasta oo iyada lafteedu uu soo weeraray, haddana muhiimad ma siin weerarkiisa, waxaanay ka doorbidaysay inay isaga disho. sixliyadda iyo garanuug. sixliyaddan waa xayawaan ama noole u qaab eg qorotada, laakiin aad uga xajmi weyn, waana ay ka duwan tahay kuwa caadiga ah ee la yaqaano. waana mid aad u ballaaran, waxaana si caadi ah looga helaa indunuusiya. muuqaalkan waxaa la soo duubay sixliyaddan oo dhowr ah, kuwaas oo weerar ku ah garanuug yar. garanuugtan waxay ahayd mid geesiyad ah, waxaanay isku dayday inay weerar isaga celiso, waxaanay sidaas samaysay dhowr jeer, iyadoo markiiba dib isaga celisay qorotadan weyn. laakiin sida caadiga ah, badnaantu waxay ka guulaysataa geesinimada, iyagoo ugu dambayn qabtay oo meeshiina ku cunay. waraabe, yaxaas iyo garanuug. markii hore dagaalku waxa uu ka bilaabmay waraabe weeraraya garanuugta, waxaana waraabihii u suurta gashay inuu dilo garanuugta kalena soo baxo biyaha, kadib markii iyagoo saddexa dibadda u soo jiideen kana soo fogaadeen biyaha. waxaanay sidaa ku heleen garanuugtii, iskana bilowdeen inay si deggan isaga cunaan hilibkan diiran. laakiin waxaa dusha kala socday oo kor ka eeganayay waxaanay iyagu filanayn, waxaana si dhow ula socday yaxaas, kaas oo ku jiray biyaha. wuu ku soo cararay dhankooda, waxaanu xoog kaga qaatay garanuugtii ay ku soo dhibtoodeen, waxaanay meesha ka dhaqaaqeen iyagoo murugaysan. libaax iyo geri. inkasta oo gerigu aad uga dheeryahay libaaxa, haddana gerigu waa xayawaan aan dhib badnayn, halka uu libaaxu yahay mid ka mid a xayawaanada ugu khatarta badan, kuwaas oo hilibka ku nool. waxayna hanguri weynaantiisu libaaxa ku qaaday inuu geri weeraro, laakiin way iska difaacday weerarkii libaaxa. laakiin intii ay iska difaacaysay libaaxa, waxay dhaawac soo gaarsiisay dhasheedii yarayd, iyadoo la dhacday lugaha dambe. daanyeer iyo shimbirbadeedka loo yaqaano flamenco. yaa filanayay in daanyeerka nooca loo yaqaano baabuunku uu yahay xayawaan khatara oo weerara shimbiraha. haddaba daanyeerkan waxa uu isku dayay inuu weeraro oo soo qabsado shimbirahan goor ay ahaayeen qaar biyaha ka cabaya meel u dhow daanyeerkan. waxaanay arrintu kadis ku noqotay shimbirihii, iyadoo markaasi mid weliba u carartay dhankii ay ujeeday.
waana sababta u sahashay daanyeerkan inuu qabsado mid ka mid ah shimbirahaas. Lo'dii iyo haramcadkii. Lo'dan waxay ahayd mid dhex taagan biyaha si caadi ah, waxaanay dareentay inay jiraan wax biyaha kula dhex jira, laakiin waa ay kala garan weyday waxa uu yahay. waxaana jiray haramcad goorahanba waardiyeysanayay kaa oo dusha kala socday oo biyaha u soo raacay kadibna lugta ku dhigay. waxaana dhici gaartay in bilowgiiba uu ku guulaysan gaaray inuu dilo, laakiin way iska difaacday iyadoo kula meereysatay biyaha dhexdooda, taasoo keentay inuu isdhiibo ugu dambeyntii. Rahi iyo maskii. nasiibka ayaa ku soo hagaajiyey rahan wadda uu fadhiyey maskan, waxaanu markiiba soo weeraray Rahi isagoo ku dhegay mid ka mida lugaha dambe. waxaanu Rahu isku dayay inuu ka baxsado, laakiin masku si fiican ayuu uga afbuuxsaday lugtiisa. dagaal adag kadib maskii waxaa u suurto gashay inuu afka wadageliyo Rahi, dagaalkaasna waxaa ku guulaystay dabcan maskii. Qorato iyo mas. qoratadan waxay aad uga yar tahay qoratadii weyneed ee aan ku soo aragnay bilowgii muuqaalkan, waxaana soo weeraray oo qabsaday maskaas oo ugu talagalay inay noqoto cashadiisa caawa. laakiin nasiib wanaaggeeda waxaa meesha ka dhoweyd saaxiibadeed, taasoo isku dayday inay ka badbaadiso maska, waxaana ku qaaday weerar maskii kaas oo ka mashquulay qoratadii uu haystay, una sahashay qoratadii kale inay iska furfurto maska. halkaasna waxaa ku badbaaday labadii qorato ee saaxiibada ahaa. maskii iyo bakaylihii. waan ognahay in bakayluhu yahay xayawaan nabadda jecel, laakiin mararka qaar dantu waxay ku kaliftaa inuu markaa weerar ku qaado xayawaanada ugu khatarta badan. haddaba maskan waxa uu qabsaday qaar ka mid a dhashii bakaylaha, waxuuna bakaylahan soo qaaday weerar ka dhan ah maskan. inkasta oo bakayluhu aanu lahayn miciyo ama cidiyo oo wax ku dilo, haddana danta ayaa ku keentay ama ku kaliftay inuu weerarkan soo qaado. isagoo ka faa'iidaysanaya fudaydkiisa iyo xawaarihiisa ayuu difaacday dhashiisii yaryarayd. mas iyo shimbir badeed. shimbirkan waxa uu ahaa mid ka ugaarsanayay biyaha badda, isagoo afkiisa dheer ku soo qabsanaya kalluunka yaryar ee ku jira badda. waxaanuu ahaa mid ku mashquulsan ugaarsi kadib markii uu soo weeraray maskan, isagoo ku dhegay mid ka mida labadiisa baal. laakiin shimbirkan isma dhiibin oo waxa uu bilaabay inuu iska celiyo maska, waxaana u sahlay afkiisa dheer kaas oo dhowr jeer ku dhuftay madaxa maska. kadib markii uu maskii xanuunsaday madaxana laga gandhawiyey, waxa uu sii daayay shimbirkan. waxaana halkaa kaaga muuqata qaniya ayay kaa fujisaa. waxauna iskaga laabtay dhanka bariga. shimbirkii waxaa soo gaaray dhaawac kadib markii ay gaadhay suntii masku. waynaga intaan muuqaalkeennii maanta. daawadaha qiimaha badanow waadna ku mahadsan tahay sida noola soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, muuqaalka laygta saar, sheergare oo la wadaaga asxaabtaada, sidoo kalena furo gambaleelka si ay kuu soo garaan dhammaan muuqaalada halkan aan soo gelino. fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.